وريف حياتك معنا هذا مع وقف رفيان وكلا ويان وأير الصومالية وريف مركز قف ترى قف هذا هو صوت والله هذه اوكي صاحب ku soo dhawaad Somaton Media waxaan rabnaa inaan ku weydiino su'aalo oo marka hore magacaaga noogu bilaabayso magacaygu walaal waxa weeyaan Cali Maxamuud Abiib su'aalaha walaal intii aan garanay waan ka jawaabaya okay walaal fanaaniinta Soomaaliyeed say isku tiirtaa fanka ma dhageysataa waan dhageystaa walaal okay harna 5 xaraf oo shan magac oo ka xarafka ka bilaabanayo oo 5 qof oo fanaaniin Soomaaliyeed oo rag ila noo tiriso walaal macnaha waan isku dayayaa inaan tiriyo marka waxaan ka bilaabayaa aniga Cali Maxamuud Abiib maya ala shahada fanaaniinta magacooda bilaab hay baan ka bilaabay waxaan ka bilaabayaa xaaban ka bilaabay maya arabna aniga badr dangeliya adraawi hay ku anuniye hello iyo hibo may rag barna haye adraawi iyo hibo ma hibo hajwaay rag haye hanuniye adraawi iyo adraawi ama hal la istaa ya hal qof la istaa hal qof la istaa bas haye inta ay gudaadaba shan qof arna shan baad rabtay shantii waxaan maanayaa imika inaan wada hayn baan filayaa shanta ma ismiya ma santahay isku dayay ku ma santahay haye walaal hayaad Somaton Media adoo ku bilaabay magacaada wadhow walaal waan ku dhawaay TV-ga Somaton magacaygu waa Cabdinuur Astur waan ku dhawaay TV-ga Somaton okay saaxiib harna inaan ku weydiino su'aalo aad u fudud oo saa weyneen marka waxaan inaan ku weydiino saaxiib harta fanka isku tiin fanka Soomaaliyeed ma dhageystaa xagga fanka Soomaaliyeed aad uga fiicnayo marwada waxa dhageystaa heesaha qaraamiga dib ma lahan fanaaniinta ma rabnaa wax ka weydiino harna xarafka shan magac oo xarafka ka bilaabanayo oo fanaaniinta Soomaaliyeed ku hor iyo ku dambe oo sheegaan shan oo ka bilaabanayo magaca shan oo ka bilaabanayo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed horta lambar 1 waxa ka lambar 1 waxa ka حاجة دبر كور ما يرجع بسوا ورا كل يسوع وحوي قبل أمنا يا أحمد كعيتي لو أحمد كعيتي سبايسي حلو يغنوا ورا راسك قرية لا سكايتا اوكي كما تطول السداد بو ما سنتهي ان شاء الله waxa ku diinaya horta marka waxa maanta laga daawanaya Somaton Media marada ku soo kule walaal adigoo magaca ku bilaabo hore magacayga Faisal Ibrahim Maxamed salaam asxaabta waan salaam ya dhamaan asxaabta ay daawanaysa meel walba joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh walaal soo dhawaan kule mar labaad maanta waxaan wadnaa su'aal fanaaniinta Soomaaliyeed waa dhageystaa heesaha dabcan shan fanaan Soomaaliyeed yaad magacooda oo ka bilowday iyo muddo hal daqiiqo ugu sheegaysaa fanaaniinta isku fiicnaan su'aasha dibadda shaqeynaa su'aashan ku bedela fanaaniin dibadda okay waxaad ii sheegtaa hadaba eray ka bilowda waa faan ugu dambayso ورف واحد كذا شيء ما صدق أول ما صدق كمان مركز سودو marka ku soo dhaw YouTube channel Somaton Media mar labaad nasdaxdu ku soo dhaweynaa adiga magaca ku bilaabay asxaabku daawanaysan salaamaya bismillah magacaygu Axmed Cabdi Abdullaahi aad bad walaal u mahadsantiin anoo dhamaan dadka soo qabqabay barnaamijka aad ugu mahadcelinaya okay walaal su'aal waxaan ku weydiinaa maanta fanaaniinta Soomaaliyeed kulli waa dhageystaa heesahooda wana daawataa qaar tagaytana way jiraan kuwii hore aadan ama kuwii dambe ha ahaadaan
shan fanaan Soomaaliyeed oo fanaaniin Soomaaliyeed ah ama rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan yaa muddo hal daqiiqo ugu sheegaysa oo magacooda ka kaco أحمد عرشة عبد الرزاق قنشح عبد الرحمن أوضي اسم الله يا اسم الصبر اوكي aad ma santahay su'aal kale aan ku weydiinaya waxaad inoo sheegtaa oo kale xaraf ka bilowdo ee shaan ugu dambayso Soomaali ku jira su'aasha labaad hadaan isku eego waxay noqon kartaa su'aal dhaqameed iyo su'aal inta badan awrta waxyaalaha loo isticmaalo kirbash loo gartay shay inta badan dadka wax garanaya haddaba erayada way badan yihiin imsax baad nagu sheegi karaysaa erayada ka bilowdo shaa ku dhamaada kirbash soo kale ilaa imsax baad ka sheegi karaysaa waa talaba sheegi laakiin mid baa iga noqday erey Ingiriis soo kale cash manay laakiin cash Ingiriis ma noqonayaa ilaa cash English laakiin Soomaalihan kirbash wax kale midna Soomaalihan erigaas hadda ka xasuusta sax markuu soo dhow adigu raali magacaada ku bilaabay aad iyo aad baa mahadsantahay magacayga waa Maxamed Amiin waxaan ku magac dheerahay macalinka Samadoon Media aad baan u salaamayaa barnaamijkiina challenge-gana aad baan u daawadaa YouTube-ka taageero badan oo ayna ahay insha Allah inta xigsi dheer waxaan dhihi lahaa aad iyo aad baan mahadsantihiin Samadoon Media aad u mahadsantahay aad baan ugu faraxsanahay maadaama maanta aan la kulmay mid ka mid ah daawadayaasha taageerayaasheena waana kaaga mahadcelinayaa mid ayada walaal dhiirigelinta iyo garbisaga aad noo muujisaan idinkoo asxaabta Samadoon Media waan kaga mahadcelinayaa walaal mar labaad soo dhow ayaan ku leeyahay maanta waxaa ka soo muuqatay halkii aad daawan jirtay Samadoon Media ya maanta adiga laga dhex daawanay bal ka waran aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aan Samadoon Media aan ku taxanahay oo waliba aan taageero badan aan siiyo hiil iyo hoob waxaan rajaynayaa mar walba inaan kala qayb qaato barnaamijyada challenge-ga maanta aad baan u faraxsanahay waa maalin Khamiis ah waliba aan la taagan mid kamid ah mid kamid ah dhalinyarta TV-ga ama YouTuber-ka Samadoon Media aad iyo aad baan u maartay shucuurtay aad iyo aad baan maartay boqolkiiba aad iyo aad bay maartay kor u tahay waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb qaato Samadoon Media barnaamijka ay wada maanta aad u mahadsantahay haddaba su'aashiiban sii gudagalaynaa bal ka waran su'aasha maanta aan ku weydiin doono waxay leedahay culimada Soomaaliyeed iyo wadaadada Soomaaliyeed sidee isku tihiin wallahi aad iyo aad baan isku fiicnaa xagga diinta mar walbana xagga diinta madartay ayaan cuskada hadaan ahay bahda madartay mas'uul calaaga hadaan ahay aad iyo aad baan madartay u taageersanahay xagga diinta aad iyo aad baan ugu badanahay xaggaas waana ku faraxsanahay in su'aalaha aad igu weydiisid okay su'aashan ku weydiin waxay tahay shan culimada kamid ah oo culimada Soomaaliyeed kamid ah yaad muddo hal daqiiqo magacyadooda oo ka bilowdo yaad inoo sheegi doontaa oo ka bilowda ma aabatin muddo hal daqiiqo haystaa ku bilowata okay Ahmed Sheikh Ahmed Rabiic أحمد الدين عابط رسوله صدق حد مرة صحيح أوكي لا أكو هذا أحمد حسن أحمد محمد يس ورمضي وهذا أحمد ذاك دكتي وعابط ترى هذا يبير وراك بلو أوكي أدون ما أحسنته والله سؤال كلام كودينا سؤال شكله وحلا ذا هاي واحد نوع شيكتا حرف قبله ذو أو إرس ومالد كم ذا فأنا يقودن بيسو ورف وحنا شيك ورف عسى وكايا كاسي فأنا قدام بسوا أوكي وريف وريف حيث هذا مع وقف ورفيان وكلويان وعير الصوماليا وريف مركز قف ترى قف هذا هو صوت هذا سودو مركز كسودو يتجانا Samadoon Media ما أنت فأد فرحنا وطها إيران تكسر قبل كشيء برنامج ما أنت أموني كسودو مركز الله مقعد بالله بسم الله عنده مقعد محمد نور عنده ها ما هذا بالمحلات أصحابك داون اسمه أنت يتجانا Samadoon Media هذا
asxaabta waxaan leeyahay waxa weeye guulaysta aad u mahadsan tahay su-aasha aan weydiin maanta waxay leedahay waxaad inoo sheegi doontaa 5 fanaan oo faniin Soomaaliyeed ka mid ah oo rag ah oo magacooda ka kaco muddo hal daqiiqad ma haystaa ha shankan oo ka kacaya magacooda ka kacaya ha diyaar ma tahay ku daqiiqada ku bilaabatay hal baan ka garin oriyada kambiyanba wallahi su-aashaas ii bedel marka hore soo dhawow ku soo YouTube channel Samadoon Media waan dhawaay walqaali mar koobaad iyo mar labaad waan dhawaay ku dhawaay YouTube kaaga okay aad ma san tahay bal ka waran asxaabta maanta Samadoon Media horfadhida maxaa leedahay horta maanta waxay tahay dareen gaar ah waxaan la yahay barta ka sii wada hurmud u noqda dhalinyartan YouTuberada jecel ee talentiyada leh ee doonayeen talentiyada soo bandhigaan dadka qaar hibooyinka gaar kale soo bandhigaan raadin la inaad inaguna fursadaha wada xagga yara eegtaan inaguna u noqotaan wadooyinka ay mar laayeen aad ma san tahay aad baad ma san tahay su'aasha maanta aan wadno waxay leedahay fanaaniinta Soomaaliyeed say isku tiin fanaaniinta xogaa yar isma fiicin laakiin waan dhagdhagaysaa qaarkood qaar taageertay jiraan kulli maanta su'aashan wadno waxay leedahay 5 fanaan oo fanaaniinta Soomaaliyeed ka mid ah oo magacoodu ka kaco ayaad noo tirinaysaa muddo hal daqiiqad haysataa diyaar ma tahay عوالي أذن عفتح عبدشو عبد الرحمن أودي عبد الكريم علي شه يو علي مي يو حين قونيس علدانتو يا عوالي أذن لبضوا واقع بنقول إنجليش أبد شدة بنقول ها والله مستعان وحين كنا نقونيس صدق هذا هيستا صدق ممكن لبض لقى رأي صدق هنا تسمع الله بكون هذا لبض صبح حين نقونيس شنو توسكين شنو توسكين الله المستعان كويس تقدر